kusoo dhawow kubadda cagta Tube iyo warbixin ku saabsan ciyaartooyda difaaca ka ciyaara kuwaas oo goolal badan ka dhaliyay tartanka Champions League. waxaa ugu magac dheer Gerard Pique iyo xidiga lagu magacaabo Sergio Ramos marka la fiiriyo ciyaartooyda hadda xifaaltamaya, balse waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso Pique iyo Ramos yaa gool dhalin badan. labadan difaac oo u ciyaara xulka Spain inkastoo Pique uu ciyaaraha ka fadhiistay, haddana waa laba ciyaaryahano oo inta badan ay ku kulmaan ciyaarta El Clasico. Gerard Pique ayaa ka goolal badan Sergio Ramos marka laga hadlayo ciyaaraha Champions League. Ramos ayaa dhaliyay 11 gool 114 kulan oo uu saftay tartanka Champions League. xidiga labaad waa Dani Alves kaas oo isna dhaliyay 12 gool 111 kulan oo ka soo muuqday tartanka Champions League. Gerard Pique 12 gool ayuu dhaliyay tartanka Champions League 100 kulan oo uu saftay tartankan. ciyaartooyda sidoo kale liiskan soo gashay difaacana ka ciyaara marka la fiiriyo xidigaha ugu goolasha badan ee kubadda cagta soo maray tartanka Champions League waxaa ku jira xidiga lagu magacaabo Ivan Alguero oo 15 gool dhaliyay 87 kulan ee uu saftay tartanka Champions League. Roberto Carlos ayaa ugu badan kaas oo 16 gool dhaliyay 121 kulan ee uu ka soo muuqday tartanka Champions League. shantan ciyaaryahano waxay yihiin xidigo qaar ka fadhiisan kubadda cagta kuwan hadda ciyaara kuwaas oo difaac ka ciyaaray wax badan ka soo muuqday tartamada Yurub ee Champions League. waad ku maasantahay daawashada warbixintan. fadlan subscribe channelka kubadda cagta Tube, like saar muuqaalkan lana wadaag asxaabtaada. mahadsanid.